sida wanaagsan ee diversity-ga ah waxaa la isugu yimi xaflad soo dhaweyna oo ay soo abaabushay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota xafladan oo lagu soo dhaweynayay marwada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa Doctor Hodan Ciise kaalinta haweenka ay ku lahaayeen dhinaca horumarka dhismaha nabadgelyada halkan midaan caaw ku soo koobi kara ma aha sida aad xusuusataan qarni ka hor waxaa jirtay gabar Soomaaliyeed oo iyadu ahayd geesiyad waxaana loo yaqaanaa Xaawo Cismaan Garabey waxa ay ka mid ahayd dumarkii ka galay kaalinta geesinimada ee Soomaaliya caaway jaaliyadda ku nool gobolka Minnesota waxay u istaageen inay soo dhaweeyaan marwada ra'iisul wasaaraha Doctor Hodan Ciise oo iyadu caawa marti noogu ah waxaan filayaa Hodan inay caawa aad u qanacsan tahay maxaa yeelay haddii ah xataa qalbigeeda ka warramo waxaa ku jira ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsoonay marka waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadka iyagu safarka dheer u soo galay soo dhaweynta Hodan oo aan leeyahay waxaan idin caawa idin siin lahaa sharafta ugu ballaaran ee la siiyo qof safar u soo galay soo dhaweynta Hodan aad baa u mahadsantiin haweenku waxa ay ahaayeen kuwa iyagu qiimo ku leh bulshada dhexdooda waxaana caaway markhaati ka ah halkaa waxaa fadhiya haweenka Soomaaliyeed oo iyagu caaway ay annagu aan daawanayno raggiina halkaa ay fadhiyaan waa guul soo hoyatay leenahay waxba hadalka idinku badin maayo hadal badanna looma imaan meeshan waxaan u yeerayaa gudoomiyaha Confederation of Somali Community ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota magaalada Minneapolis Doctor Saciid Faahiye fadlan ila soo dhaweeya kulligiin waa idin salaamay waxaan caawa halkan isugu nimi inaynu soo dhaweyno Dr. Hodan Ciise oo ah marwada Prime Ministerka Soomaaliya soo dhawow baan leenahay markaan inta iraado waxaan leeyahay dadka halkan yimi ee sharafta badan idinkana waa idin mahad celinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkii waxaan kaloo u mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey shirkan qiimaha badan iyo madashan quruxda badan ummadda Soomaaliyeed 20 sano ugu dambeeyay waxay soo martay dhibaatooyin badan dagaallo dhac wax kastoo suuragal ah oo xun ayay soo martay waxaan leeyahay taa waxa ka saari kara maanta dad mutacallimiin ah oo sharaf leh sida Dr. Hodan Ciise iyo saygeeda Cabdiwali Hodan soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsan tahay Hodan waxa ay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee aqoon-yahanada ah Hodan waa gabdhaha farakutiriska ee la yiraahdo waxa ay haystaan shahaadada PhD-da soo dhaweynta Hodan caaway dadka jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurba joogta kullayba sabab baa jirtay u soo dhaweeyeen qof la iskama soo dhaweeyo qofkana taariikhda ayaa sheegtay isagu isma sheego Hodan waxa ay ka timid Soomaaliya waxa ay ka wareysaa xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya waxa ay samaysay urur la yiraahdo Somali Women Association halkaas oo ay shir ugu qabatay xaruntii loo yaqaanay SYL ee magaalada Muqdisho Hodan waxay safka hore kaga jirtaa dumarka u heelan hariya habeen kaalinta haweenka ay ka qayb qaadashada
kusoo dabaalidda nabadgelyada dalka Soomaaliya maanta dalkeena Soomaaliya wuxuu u baahan yahay waa nabad marka haweenka ayaa maanta iyagu noqday kuwo faraqa u xirtay in ay Soomaaliya nabadeeda keenaan maadaama rag ay ku feel garoobeen laakiin waxa jirta ninku marka uu dagaal qaadayo kulliba xaas buu leeyahay u maleynaya ilaa ay hadda lama hayo naag ninkeedii ku soo iriday dagaal buu qaaday ama warlord buu noqday taasna xoogaa haddaan ragnahay waa tirsanaa raalliga ahaada laakiin wanaagiina badan Dr. Hodan Caaway waxay halkan u timi inay warbixin guud na siiso waxqabadka Soomaaliya u baahan tahay maantay qofna uma baahna in looga sheekeeyo waxaan markan rabaa inaan u yeero wakiilka boqorka waa Cabdullaahi Axmed Khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه إلهي ونوافج وحج عشاء ورالك تهي أنا له كابرنا بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال مركان إلى هذا مروينك مدنيالك أهلك مادية دبانتيبا waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay may waxa waqtigu waa gaaban yahay waana waqti dambe uma baahna inaan maaragtay hadal dheer la sheego xaqiiqdii sida hadda uu ii sheegay wariyo marka waxaan leeyahay annagu halkan dadka fadhiya hodanay doctoresa hodan professoresa dadka caawa kuu yimi oo halkan fadhiyaa gobolka Minnesota tuulo kasta waa ka yimaadeen meel walba la isaga yimi waa Soomaali waxayna u yimaadeen kalgacaylkaaga inay ku soo dhaweeyaan kuguna soo dhaweeyaan xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo dhalinyaradu gabdhaha iyo wiilashuba ay aad uga shaqeeyaan runtii waxaan leeyahay ku soo dhawow Minnesota waa gobolkaagii waa walaalaha waa dadkaagii doctoresa ku soo dhawow intaa markaan idhaahdo waxaanu sugaynay oo muddo la lahaa hodan baa soo socota hodan baa imaanaysa professoresa hodan baa soo socota ha loo diyaar garoobo baa wax badan la lahaa hadda ilaahay caawu qadaray inaynu isu nimaadno waa ku faraxsannahay imaatikaaga aad iyo aad baan ugu faraxsannahay nuguna soo dhawow magaaladeeda ku soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan ugaas maxamed cashuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان لنا هاي وحان كوكو سو دوينينا adiga oo ah marwadii ra'iisul wasaaraha wakiilna ka adiguna ra'iisul wasaaraha waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan annagoo aan u kala harin jaaliyadii Minnesota ee qurbaha joogtay waxaana jecel lahay horumarka iyo midnimada dalkeena waxaan intaa ku dari lahaa adduunka sida aan u sheegay isbedel baa kolba ka dhaca raggii Soomaaliya waa fayl garoobay inkasta oo dhalinyaro mutacallimiin oo dadaalaysa ay jiraan sida Cabdi Weli oo kale bal soo ma fiicnaateen gabdhihiinu inaad nagala wareegtaan hadda xilkii oo midnimadii Soomaaliya aad raadisaan soo saas uma fiicnaateen gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya dawladnimadeennii iyo jiritaankeenii iyo sumcaddii aynu adduunka ku lahayneen Afrika inagu muxuu ahaa libaaxa Afrika ahayn in la soo celiyayna u baahanoon ceebta ka baxnee hanagu halaynina ka cabaan idin leenahay aad baad mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa markaan dadkii dhulka mari jiray inaan bareek ka qaadano waxaan u yeerayaa dadkii cirka mari jiray waxa jooga duuliye sare Ibrahim Abikar oo ahaa duuliyaashii Soomaaliya ku soo dhawaaya kule fadlan ila soo dhaweeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسولي ويننا مروة برايم مينستر كا دكتور هدن عيسى سنة كيو هراء انتان عدولي اللو مقعابين برايم مينستر كا أنا جو مركا أتجي UN كشير نيروبي يعيدو أسعة سيرفي إنه كسو سميسة صوماليا وولي وارمها كونستيتيوشن كا يعبدولي وشركة أسعة سدحدين حقوق كلنا نيروبي marka waxa uu tiraan waxaan u socdaa Muqdisho kadibna waxa laga yaabaa inaan siito gobolada dhexe si surveygan u soo sameeyo aniga muddo 20 sano wali xamar ma tagin ayadina markaas uu socotay markaas aan ku yiri horta waa ii geesan badan tahay dad xamar tagto aniga halkan ka noqonaya
marka ilaa markii wixii ka dambayna markii loo magacaabay cabdiwelina ayadoo muqdisho joogta weliba xabadaha ay socdaan ayay email iga soo dirtay hadalkay igu tiraan xasuustaa marka waxay tiri gabdhihii oo la rafaadiyey oo dhibaato badan loo geystay ayaan dhex fariistay aan la joogaa meeshaasaan emailka kaaga soo dirayaa dadkii haweenkii waxay u baahan yihiin tiri solidarity marka wax kasta waan isku iloobay waan ka tegay jaamacadda iyo kulli gabdhihii aan u tagay inaan la qaybsado dhibaatada waa dareen ka maqan ragga badankiisa oo gabdhaha ku jira aniga hore aan idinku sheegay caawa inaan ugaasyada aan ka tegi doonin haddana waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan ugaaska beesha Madulood. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما سهل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هدي لي أواس مدلود وحاسوية زي قروين لكن أواس كصومالي وجراء أنا وحنا هاي وكيلك أنا هاي. دولة محمد زاد بر إلى غير السيو كل وحبضنا أرجعنا هذا كحونه. ولا بوفينيس دولة بوفينيس دولة ده وحبي بوفينيس وحبي هجاجينيس حتى وحاي من ما وحنا وضع لقايو عن دولة ده مجرته لباتو رجل مركب حالنا هاي أنا عيد والبنوت ماذا عيد والبنوت ماذا وسود ويننا waxaan rabaa markan inaan u yeero maxamed xasan cusmaan oo nooga sheekeyn doona taariikh nololeedkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Abdiweli Mohamed Ali Gas, a Somali Prime Minister today. waxa weeye nin ka dharagsan waana qanaan ninka odaga waxa weeye nin ka dharagsan nolosha baadiyaha iyo nolosha magaalada iyo aqoonta jaamacadaha saddexdaba nin hayo weeye ilaahay ku barakeeyo Abdiweli qualificationkiisa waxa weeye PhD oo economics or professor of economics ninkaas extensive experience in teaching research, statistics, growth and development, international political economy, international economics, management, money and banking, applied microeconomics, applied macroeconomics way. Mid kale waxa way microeconomics, monetary theory, and policy, public choice and public finance. All those areas ninkaas expert buu ku yahay. Dadaalu dadaalay weeye. Maadaama waqtigu ugu yar yahay, jaamacadda uu ka shaqeeyana waa Niagara Falls, jaamacad ku taala. Waxaa jira honor tiro badan oo la siiyey, aad u tiro badan ma koobi karo. Maadaama waqtigu ugu yar yahay, wuxuu ku yimid dalkan afgaraad scholarship la yiraahdo. I think Said Fahi inuu ku yimid Soomaaliya markuu ka imanayay oo la siin jiray ardada Soomaalida markay bachelor ka qaataan halkaan aqoon u soo raadsan jiray. Ma liicin Abdiweli ee wuxuu kaga soo qaaday sidii loo baahnaa si ka badan ilaa ay jaamacadaha Mareykanku ku dagaalamaan annaga noo shaqeeyo iyo annaga noo shaqeeyo markuu qaatay PhD-giisii. Academic work uu sameeyay waxa weeye August 20, 2003 ilaa maanta wuxuu ka shaqeeyaa jaamacadaas Niagara Falls Department of Commerce, Lewiston, New York, isagoo ka associate professor of economics. wuxuu dhigaa advanced quantitative methods, wuxuu dhigaa managerial economics, wuxuu dhigaa money and banking, wuxuu dhigaa intermediate microeconomics, wuxuu kaloo dhigaa economic growth and development, sidoo kale wuxuu kaloo dhigaa global economics. Dalka Abdiweli waxaa leeyahay congratulations badanna waxaan leeyahay aad baan u mahadsan tahay. السلام عليكم ورحمة الله. haddana waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero Banaadir Community Executive Director Maxamed Abuukar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u hambaliyeynayaa ama mahad soo jeedinayaa ciddii hawshan soo abaabushay waqti badan gelisay u soo taagnayd barnaamijkan quruxda badan dadkan dhan u wada yeeray waxaan u hayaa xishmo badan iyo mahadan u celinaya
ta kale waxaan aad uga faraxsanahay inaan kusoo dhaweeyo hodan ciise marwada ra-iisul wasaaraheena jumhuuriyadda federaalka soomaaliyeed. waxaa kaloo aad uga faraxsanahay maanta banalka dadka ka muuqdo. banalka waxaa ka muuqdo qurux, isbeddel weyn, dumar soo istaagay inay soo dhaweeyaan walaashood. developmentaas weyn yaa keenay marka ra-iisul wasaaraha keligiisa ma keenin, waa lala shaqeeyey. wuxuu helay la taliyo fiican, consultant fiican. haddaynan hodan garabka istaagnayn meel maba gaareen. marka waxaan xusuustaa hees la oran jiray haweenkeena waa garab, waa gargaar qarsoone maangaab ku garanayn. marka waxa weeye waxa waaye gargaar aan la dareemi karin laakiin wax weyn qabanayo way. marka aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa kaalinta ay wadda inay hore usii waddo, in waddankana intaan uu ka sii hormaro. waa mahadsantihiin. hodan mar labaad waxaan leeyahay kusoo dhawow Minnesota. eedda hodan soo dhawow Minneapolis noogu soo dhawow insha allah. heestaan yaa diidan dowladnimadii aan lahaa kusoo dhawaada. haddaan Soomaaliya jeceshahay gacmihiina arko Soomaaliya rabnaa dowladnimo rabnaa anagu. yaa diidan dowladnimadii, yaa diidan isku dubnidii, yaa diidan dowladnimadii, yaa diidan isku dubnidii. yaa dumshay yaa diirtay dalkaygii oo dembigaa leh, yaa dooxay duqaydii iyo dumarkii dabargoy ubadkii. yaa dumshay yaa diirtay dalkaygii oo dembigaa leh, yaa dooxay duqaydii iyo dumarkii dabargoy ubadkii. degdeg iga jawaaba, waa su'aal daaweyne degdeg iga jawaaba. yaa diidan dowladnimadii, yaa diidan isku dubnidii, yaa diidan dowladnimadii, yaa diidan isku dubnidii. duulaankiyo afduubka dunyaha badda yaa ka dambeeya, dadayartan wejiga duuban isdilayiro ismiidaanka u diray. duulaankiyo afduubka dunyaha badda yaa ka dambeeya, dadayartan wejiga duuban isdilayiro ismiidaanka u diray. dowladnimaa rabnaa anagu, waddankeena inaan ku noqonaa rabnaa. qurbadan waa nacay, waddankaygaa raba inaan ku noqono. yaa diidan dowladnimadii,
diidan dowladnimadii yaa diidan isku dubnidii somayaale dir walaala isku diine yada kanaha dhex dhigaya dagoro doc waliba xuduudana iyo daha kala dhigay waaxigaale dir walaala isku diine yada kanaha dhex dhigaya dagoro doc waliba xuduudana iyo daha kala dhigay aad iyo aad umahadsantiin kuligiin inta hodan soo dhawow aadaa umahadsantaa maadaama aanu soo booqatay markan waxaan rabaa inaan u yeero nin dhallinyaraha oo qaaliya oo caawaya haddii halkaa magaciisa ka sheego aan jeclaan lahaa anigoo codsanaya in loo istaago waxa weeye xasan maxamed cali samatar oo isagu caawa ka hadli doona taariikhdii ra-iisul wasaaraha fadlan ha loo istaago waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin midda ugu horreysa soo dhoweynta qiiraha leh aad halkaan igu soo dhoweyseen waa mahadsantihiin waxaan jeclahay in aan midda ugu horreysa dadka halkan isugu yimid marka hore aan idhahdo waa mahadsantihiin ka qaybgalka aad halkan nagala soo qayb gasheen iyo soo dhoweynta aanu ku soo dhoweynayno marwada prime ministerka hodan ciise waxaan kaloon jeclaan lahaa inaan aada ugu mahad celiyo dadka soo qabanqaabiyey marxaladani quruxda badan weliba waxaa igu maqaala in muddo aada u gaaban lagu soo qabanqaabiyey marxaladani taasi maxay markhaati u tahay waxay markhaati u tahay muddo gaaban in lagu soo qabanqaabiyey marxaladan intaasoo Soomaali ah inay isugu timid waxay markhaati u tahay cabdiweli prime ministerka shakhsiyadiisa iyo halka uu ka taagan yahay Soomaalida ayay markhaati u tahay uma baahnid qofka inaad si shakhsiyad ula kulanto si aad ku garato qiimaha iyo culayska uu leeyahay waxaad qiimeyn kartaa oo eegi kartaa qofka hawsha uu qabtay mas'uuliyadda saaran sida uu u gutay haddii aad aragtood qiimeyso waad garan kartaa qofka shakhsiyadiisa waad garan kartaa qofka culayska uu leeyahay marka cabdiweli muddo aad u gaaban buu haystay ayuu xukuumaddani haystay prime ministerka uu ahaa postiga ka shaqaynayay aanu eegno wax yar aanu maaragtay dib ugu noqonno guulashii uu soo hooyay intii yareed uu meeshii joogay midda ugu muhiimsan ee aanan qiimo la saari karin aniga shakhsi ahaan aan oranayo cabdiweli aad iyo aad impressed iga dhigtay iga cajiibisay waxay tahay nabadgelyada la dagaalanka al-shabaab waanu garanaynaa dhibaatada naga haysatay taa maanta waxaa ilaahay xamdigiisa magaalada muqdisho maanta boqolkiiba boqol ku dhowaan inay safe tahay oo dhan walba uu qof walba ka tegi karaa maalin walbaan la hadlaa nin halkaan iiga tegay baan daraad xamar tegay wuxuu yidhi ma aamini kartid baawar baan ka qaatay airboortka ilaa xamar oo dhan ilaa waaberi ilaa boondheere cid kula hadlaysa iyo cid hub la maraysa magaalada ma jirto marka taasi waa markhaati yaanan intaa ku ekayn waanu garanaynaa ciidankii Soomaaliyeed uu isagu de wasiiradoo dhan prime ministerkii hoos yimaadaan isagu mas'uulka ka ahaa ciidankeenu halkuu marayo insha Allah inta ka hartayna waliba wax yar baa ka hartay way sahlanaanaysaa wayna dhamaanaysaa laakiin guusha inuu credit ku leeyahay waa inaynu aqoonsanaanaa waxaa kaloo jirta oon doonaya halkan inaan ka tilmaamo qaybihii libaaxeed uu ka soo qaatay arrimihii road mapka waa midaan la ilmaami karin waa mid in la tilmaamo u baahan waynu garan karnaa dhibaatada maanta Soomaaliya joogta ee ka taala waynu garan karnaa cabdiweli qof wuxuu ahaa inaga nala mid ah qof nabadani Mareykan ku jooga reer korinaya xaas leh ilmo leh laakiin noloshiisii buu huray xabadda ay ka dhacaysay ayuu ka degay magaalada marka nabadgelyada kaliya ma aha waxyaabaha uu ka shaqeeyay waxa ka mid ah road mapkii
dib u heshiintii shirkii garowe shirkii muqdisho marka way badan tahay tiradu aad bay u badan tahay reconciliationkii kuma dheeraanayo sidaan ballan ku qaaday sababtoo ah waxaan aad u xiisaynayaa marwada hodan ciise hadallada iyadaa nooga wada xoogogaalsan iyadaa noo sheegi doonta laakiin waxaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo halkan haddii ay jaaliyadda soomaaliyeed minnesota ii fasaxdo iyagoo anigoo magacooda ku hadlaya inaan aad si xoogan ugu dhiirigelinno inkastoo si rasmi ah si official ah uusan cabdiweli weli ugu magacaabin sida annaga kollay maqaalka nagu wada ah inuu madaxweynimadii u tartamayo laakiin inaanu ku dhiirigelinno oo aanu nidhaahno dadaalka aad bilowday horay u sii wad dadaalka aad bilowday waan ku garab gelinaa horay u sii wad hadduu ilaahay yidhaahdana markii ay dowlad rasmi ah ee transitionalkan aanu ka baxno waxaan u malaynayaa boorsadeennu way wada xirxiran tahay oo waanu ka wada degi doonaa qof walba oo Soomaaliya kollay anigu shakhsi ahaan haddaan u hadlo horaan u sheegay weligii lama kulmin baan iri laakiin waan jeclaan lahaa inaan la kulmo waan jeclaan lahaa inaan la fadhiisto waxaan filayaa qof walba oo Soomaaliya maanta Minnesota joogana inay sidaa dareenka uu nagu wada jiro ayaan dareemayaa waxaa jirta dhowr luqadood baa lagu sheegay laakiin waxaa jirta mahmaaha weyn dhowr boqol oo sano ee Greek ah oo oranaysa every great man there is a great woman behind every great man marka hodan ciise waad mahadsan tahay mas'uulkii marwanimo hoggaanka aad u qabatay waad mahadsan tahay ururka waanu kugu mahadcelinaynaa waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا دمانتين سلامة إسلام كايدنكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربلا يا داي يا الله باسكنا حجاب بلا يا داي يا الله باسكنا حجاب وبنديقا هاوشين ربي يو بالخير كوبيك بنديقا هاوشين ربي يو بالخير كوبيك ورمضحدا مداشا قروح ذا مرتي قد كلا اسكو يمد مصلحة انت جوك تماد بانو حيلينيا ومرويني يا مودان ماد بانو حيلينيا مرادك يا عوش الله عابوري لاغو مقصود وردروفتو مركي اين قارتو دالكي لقاحي daruuftu markayna gaarto dalkii la qaaxay oo caruurtu dayowdayo gaaja lala daldalay waxaana daryeelayo dalku nooga haray war dumarka Soomaaliyeed doorkiisu ma helin dumarka Soomaaliyeed doorkiisu ma helin هودان سلام قاليو سو دوين غدون هودان سلام قاليو سو دوين غدون او حبلا Soomaaliyeed ay ka siimayin ee halganka iyo hawshahada afkaagu ku agaag halganka iyo hawshahada afkaagu ku hagaag waxaan rabaa inaan u yeero aqoonyahan Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha Somali Parents Association Maxamed Xasan Abgaalow oo caawa inoo faahfaahin doona waxqabadka dawladda oo ra'iisul wasaaraha ka yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas بسم الله الرحمن الرحيم waxaad moodaa bal horta inta aanan hadalka culayska ah aanan dhex gelin waa laydiin sheegay waxaa laydin yidhi prime ministerka cabdiweli waa prime minister waa professor waa doctor hadda culays bay leedahay duuflow dhan waa iska tegey markaa
sababta aan ku leeyahay duublo dhan waa tegey waxa weeye ilaahay baaba sheegay hal yastawuuna aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qof ilaahay aqoon siiyey iyo qof aan ilaahay aqoontiisiiba raadsan oo aan isagu halkaas ka fadhiistay isku mid noqon maayaan marka keligiis markaa meeshii aqoontii isagoo saa u haysta baa waxaa misena raacday professor doctor hadan ciise wakaba miyaad marna ii sheegaysaan xukunka soomaaliyeed taariikhdiisa markaan soo qaadno couple ama laba ama jows credentialka ama aqoonta intaa la eg leh waa maya waa maya muddo yarba alla nasiib wuxuu inagu siiyey inaynu labada aqoonta saasa leh aynu helno aqoonta waxa weeye labadoodu markaa shahaadooyinka marka laga reebo waxay yihiin educators dad waxbara marka la tareengaraynayo macallimiinta iyo dadka waxbara waxaa wax lagu baraa noole maskaxda ka dhis soo dhaweeg jacayl ku abuur wax tar wax sii baa lagu barbaariyaa macallimiinta askarta iga raalli ahaada waa idinku yaro leexinaya askartana waxaa lagu barbaariyaa qabso xir dil xumaan maaha waxa weeye waxay u baahan tahay waxa weeye waddankaa labadaaba u baahan marna difaac u baahan marna barbaarin u baahan marka professionkii ay lahaayeen baa waxay noqotay barbaarin su-aal baan haddaba idin weydiinaya horta intaanan su-aashaa idin weydiinin dalkan maraykanka aynu joogno 6 qof baan idin tilmaamaya bal hadda bill clinton president bill clinton waa garanaysaan soo maha clinton xaaskiisu tumay ahayd hillary clinton labadooda keebaa adag hillary madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga john biden xaaskiisa maxaa la yidhaahdaa doctor ya doctor jody waa dhakhtarad waxa weeye waa PhD holder iyaduna okay president obama waa lawyer aada u sarreeya hadda bal xaaskiisuna maxay tahay lawyerad ka daran waxaan saa idiin leeyahay waxa weeye soomaali hadday caqli leedahay jaanis bay haystaan today oo ah 2 qof oo barbaariyaal ah waxbarayaal ah professors ah labadaa qof baa soomaali haysataa today bal hadda imagine hadduu dalkao dhan hoggaamin lahaa ka warrama anigu maadaamaan macallin ahay isku qolaanu nahay anigu personally fekerkayga aqoontayda dadnimadayda xiniyahayga xooggayga intaba waxaan ku taageerayaa doctor cabdiboli wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahaa markan inaan noogu yeero gabar walaasheeya oo qaali ku ah communityga minnesota iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed cadarkaahin waxaan jeclaan lahayn inay 2 minid halkan ka tiraahdo horta waxaan leeyahay hodanay walaal soo dhawow anigu waa markii iigu horreysay 2 dhaktar oo reer ah soomaaliya waxaan ku arki jiray 2 korneyl oo isqabaan arki jireen marka qoladii labaad baad soo dhawow hodanay anigu waxaan ka hadlayaa in yar waxaan ka sheekaynayaa hadda waxyaalaha jira ee waddankeennii ka jira
horta sheekaan idinka sheekaynaya la yidhaahdo ku qabso ku qadimayside hadda waxaa socda berigii hore madaxnimada waa laga cabaabsan jiray waa laga xishoon jiray waxaa la odhan jiray wallahi ani xilkaa ma qaadi karo wallahi anigu tacliintaa ma lihi wallahi anigu waxay ahayd wax dee waa laga warwareegi jiray hadda youtube-ku baad isgelinaysaa 6 qofna waad u yeedhanaysaa tan yarna waad soo xidhanaysaa miidiyahana waad u yeedhanaysaa daaseed waxa weeyaan waa ku qabsa ku qadimayside amba way kan weeyaan marka waxaan leeyahay dadka cabdiweli oo kale ah ee Soomaaliyeed hal la doorto si aynu quality u yeelan dawlad quality leh in badan baan soo jabaynay in badan baan rafaadsanayn warlord mid xabad haysta mid xasuuqe aynu shacabka u tubaynay mid qalin haysta aynu hadda soo dhawayno oo hayno hogaamiyo oo aynu taageerno Soomaalidu in badan bay qori ku caanamaalaysa xitaa bariga hore waxaa loo jiray ninkaasu 100 biyaha uma ka bado bal mid qalin haysta bal qalinka hadda aynu ku kalsoonaano walaalayaal aynu xagga qalinka aynu dhaqaaqno oo cabdiweli aynu taageerno iyo inta kale isleedihiin wallahi dalka way hogaamin karaanba salaamu calaykum an educator macallin intellectual community activist and walaalayaal ila soo dhaweeya maxamuud jaamac xaamud maxamuud soo dhawo horta Soomaalinimo iyo shantaas xidigood waxa lagu keenay midnimo iyo dad leh vision ay meel ay wax gaarsiiyaan oo gumaysi iska xoreeyaan haddana waxaynu tagnay meeshii ugu hooseysay oo innagii baa kala qaybsanay innagii baa isdilay cid kale oo dibadda inoo ka timi ma jirto ka bacdi meel kale oo hoos looga sii noqda maba jirto horta kor loo soo kaco moojaan waa in la bilaabaa oo la helaa dadkii SYS siday isu midaysteen oo isu doonteen in dad Soomaali ah oo jecel cadaalad horta number 1 waxa la isku dilay waa cadaalad dar ninba wuxuu doonayaa sad bursi inuu ninka kale ka badsado haddii cadaalad aynu isku garanno waxaynu samayn karaa halkii 60kii iyo 50kii baynu ka soo bilaabi karaa Soomaaliya dib baynu u dhisi karaa innagoo weliba waay aragnimo adduunka oo dhan ka soo helay oo hadda joogitaanka aynu dhulkan joogno dee iskama joogne dad baynu ka arkaynaa waxyaalaha wanaagsan oo ay qabsanayaan inaynu kaga dayano oo wax wanaaga dib ugu celino waddankii taas maxaa keeni kara waxaa keeni kara dad leh aragti inay ka gudbaan qabyaaladda oo danta Soomaali intii isku dana is doonato taa weeyaan tan hadda bilaabatay oo Dr. Cabdiweli uu bilaabay nin 2 gabdhood lahaa baa laga soo doontay mid tii yareed baa laga soo doontay markaasuu yidhi oo heblena gorsaari ma tanaa la rabaa wuxuu yidhi waa jublad labadu waa la isku qaadanayaa ama waa laga wada tegayaa hadda Cabdiweli iyo hodan waa jublad waa la isku qaadanayaa maaha wax lagu khasaari karo labaduba waa isu dhigmaan PhD bay labaduba sitaan wax qof meeshaad ka dooranaysa 2 qof baad heshay hadda anagu waxaan soo jeedin lahaa inaynu isku raacno in majaraha Cabdiweli horta waxa mashquuliyay road mapka iyo waxa mashquuliyay inuu single focus wax markaad qof wax qura ka dhigto aragti dee wixii kale waa la iska ilaawaya hadda dadkan oo dhan weydiisay qabiil kasta mid aan wax ka sheeganayn ma jiro micnihii waxbuu samaynayaa marka wax wanaagsan buu samaynayaa mar haddaan qola meel gashan oo aanay oran annagu wixii aanu rabnayna waa ka helay Cabdiweli coalitionkan hadda uu sameeyey oo hadda Master Samatar uu tilmaamay inuu
nabad soo geliyey waddankii eeg dadku nasiib bay leeyihiin nasiibkiisaa siiyey inay suurto gasho in xamar la xoreeyo nasiibkiisaa siiyey cabdiweli iyo hodan ciise labadaba markaa han ku taageero oo aan ku dhiiri gelino iyagu qofku markuu shaqada ku jirto dadka islaamka ah bosishanka lama doonto ilaahay waxa lagu leeyahay islaamka dhaqankiisa qofkii wax soo doonta ha siinin dan buu ka leeyahay laakiin waa loo gartaa dadka ma u garanay inuu cararo oo madaxweyne noqdo idinma maqlayo weli ma u garanay wasalaamu calaykum waxaan u yeerayaa amiira axmed oo iyadu ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dhinaca haweenka marka amiira soo dhow ayaan ku leeyahay fadlan amiira ila soo dhaweeya waxa meeshaan i keenay waxa waaye qofka walaalkaa ah oo aqoonta leh haddaadan u qiran oo aadan u dheganuglaanin waa aragteen 20 sano dhibaatada aan soo marnay hodan waa doctoressa PhD holder ah laakiin la isma weydiinin hodan doctoressa PhD holder kaliya ma ahan hodan ilmay dhashay hodan hooyo waaye hodan PhD-geedii waxay ilmay ku korisay hodan waxay noo tahay role model oo aan Soomaali haddaan nahay dumarkeeda u baahannahay ayadoo kale inaan daba istaagno aan dhibaatada haddan haysta 20 sano aan soo marnayna waxa waaye waa say abaayada cadarka ahan sheegtay YouTube imaaday Taiwan imaaday media-na u yeeranaysaa qof walbana beeshu isii taagay marka walaasheen hodan anisay ila tahay aan maqalno wax alla wixii ay meel alla meesha maanta jooga ka rabtaan Soomaaliyana inta PhD-ga ahna ayadaha la soo safto anigu kuleyba inta iyo salkan keeni doonaa marka hodan aan taageerno habeen wanaagsan oo salaamintii salaam calaykum walaalayaal idin leeyahay waxa weeye horta mid aynaan iloobin waxa weeye inaan waddankan ina soo dhaweeyey aynu degnay ee maanta aynu wax ku barannay aynu productigaas oo kale ka soo saaray inaynu ugu mahadnaqno iyada ruuxadeeda inaan iloobin midda kale waxa weeye taariikhdeenii yaynaan iloobin walaalooyinoo waddankaan lahayn wuxuu yidhi ma sheegaayay waxaynkaasa iga rida waraabaha iyo xiina waxaalan fastaciduu xayaakum allah yaa soomaal waxaasaa yaraantiina lagu soo koriyey dhowaan 3 sano ka hor nin maraykan ah wuxuu qoray ninka Soomaaliyeed ee madaxee meel ka hadlayay audience-ga dhagaysanayay inay approve gareeyaan waxa uu ku hadlayo will depend upon cidda uu yahay ninkaasi marka waxa halka ayna dhigay dhibaatadaas waa taas weeye hawday malaanina 45 sano ka sokeeyay wadankii alxamdulillah I do not regret productigaas oo kala an dadkaas oo kala maanta wuxuu soo dhignay oo halka ka soo baxay oo maanta lead garanay Soomaaliya lead garanay maalin dhaxdii ahayd about last year ayaa gabadh Kenya ka timid Soomaaliyeed oo doonaysay inay u ordo baarlamaanka Kenya baa lacag loo ururinayay inaan baa soo gar fadhiisto wuxuu yiri haddaad barigii noqotid Soomaali wax baad u qaban lahayd waxaan haddaan barigii noqdo anigoo diseased or infected with tribalism ayaa soo noqon lahaa baan marka adeer welcome thank you very much inshallah waa Sidiiq Warfaa oo u cararay senator for Minnesota Sidiiq Warfaa soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharaf ii leh maanta Dr. Hodan Ciise inaan ku soo dhaweeyo magaaladan Twin City ay la tahay qof Soomaali Amerikaana Dr. Hodan Ciise aniga waxaan kula kulmay maalin breakfast aan la cunaynay Deputy Ambassador-ka Turkiga Soomaalinimada say ugu weyn tahay iyo especially arinta aad iyo iskala hadalna waxa kamid dhalinyarada ay mar walba tiraahdo qaybta ka qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska waddanka ummadda Soomaaliyeed marka waxa weeye new generation ay rabtaa inay soo saarto marka Dr. Hodan Ciise waxaan leeyahay adiga iyo Prime Minister-ka waxaan kaloo caawa halkaan rabaa inaan ka qirto inaan horta marka hore u mahad celino meel walba madax baa ugu sarreeyay marka even madaxweyne Sheekh Axmed ha loo mahad celino darkiisa
aad baan ugu mahadsan Dr. Hadan Ciise kusoo dhawo Somali American baan happy kuna inaa magaalada noogu imaatay waxaan ballan kaan qaadaynaa waxa dhalinyarada Soomaaliya meel walba naga daawanaysa daafaha dunida inaan waddankeeni xasuusnaano. Salaamu calaykum marka waan idin salaamay soo dhaweyntii iyo hadalladii wanaagsanaa ee soo dhaweynta iyo muxuu ahaayay wax isfaridda lahay isugu jirayba waa tay baa la yiri Cabdiweli wuxuu ahaa nin Soomaali wiilasha Soomaalida dhaqankoodu lahaa waa nin dhaqankiisa aad u ilaaliya nin aan iska yeelin Mareykan iyo waxaas maahay hawsha guriga hodan baale tii dibadana isaga leh saasay ugu qaybsanayd iyadana way ogolaysna wuu ogolaa marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada hodan waa mahadsan tahay waa sidii hore loo sheegay waanu rabnaa hawshu hal qof noo qaban lahaa hawl ay laba qofood noo qabanayso jumladii baanu rabnaa jumladii baanu ku qaadanaynaa haddii ilaahay ka dhigo haddii ay noqon weydo oo waxaan doonayno uu Cabdiweli noqon waayana mid khayr qaba isna oo muxuu ahaayay hawsha aan filayna inay reerkan qaban kara inuu ilaahay nala kulansiiyo iyagana meel ka wanaagsan ilaahay siiyo dalkiina ha loo wada duceeyo wixii qoranna siday sheegtay waa la wada marayaa ilaahayna ha isu kaya cafiyo assalaamu calaykum Somalia dugeynay welcome to Minnesota soo dhaw ayaa ku leenahay Hodan Ciise bismillahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkan sharafta leh ee caawa halkan isugu yimi in maaragtay aad soo dhaweysaan ma garanayo waxaan ku mutaystay laakiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa walaaltinimada qiimaha leh ee aad tustaan iyo sida wanaagsan ee diversity waxaad moodaa dadka caawa ka muuqda halkan inay yihiin runtii dad Soomaali oo dhan waa loo dhan yahay aniguna aad iyo aad waxaan jeclahay inaan tago meel loo dhan yahay waayo ilaahay wuxuu dhammaantiin inoo abuuray weliba inagoo isku dada oo isku dana oo wax isku wada ah oo isku wada eg haddana inaanu iskala saarno oo aynu dhibaato isa soo gaadhsiino hadda waxaan ii muuqataa inaa xadaarad cusub ka soo baxday dadkii oo unity in diversity aad diyaar u tihiin adigoo qofka kale ka qabiil duwan waxaan u malaynayaa aniga inaan iga sugaysaan inaan war idinka siiyo wadankii haddaan ka imi 10 cishaan ka sokeeyey wadankii waa barwaaqo waa nabad xamar anigu markaan tegey horta actually anigu xamar 2006 baan tegey qolooyin gaalaan raacay qaadka iyo dhibaatada uu dadka u leeyahay baan research ka soo sameynayay waxaan tegey xamar waxaan tegey gaalkacyo waxaan tegey boosaaso waxaan tegey hargeysa waxaan tegey gobolladoo dhan iminkana 2011 baan tegey markaa muu ahayn prime ministerku hadda constitutionkan kasoo sameynayna markaan sameynaynay 2011 May runtii aad iyo aad bay u dhib badnayd haddaad shaqaalaha sii dhaafaysid inaad xabad weefto inay kugu dhacdo baad ka baqaysid iminkana waad aragteen waxaan maqli jiray Soomaalida qofka caadilka ah waa qofka runta sheega haddaynaan inagu nabadda iyo wanaaga iyo wixii saxa ee la sameeyo aynaan sheegin daway naga sheelmaysaa oo ilaahay baaba yidhi haddaad xamdi naqdaan waan idin siyaadinayaa xamar oo maaragtay May 2011 qofka waxa le amaantaas iyo mahadnaqa lehna horta waa ilaahay ilaah baa inoo keenay isku duubnida dadka jooga iyo wada shaqaynta dawladda ayaa arrintaa keentay creditkeedana Soomaalida hadda hawsha hayso dhan baa iska leh waa loo wada dhan yahay dadka ciidamada jooga ee Soomaalidu ay necab tahay ee shisheeye ee xabadu ku dhacayaan laftigoodu waxay ka leeyihiin nabadda la sugay marka horta inagu marka hore waa inaynu noqonaa dad ilaahay inay u mahadnaqaan dadka wuxuu qabtana u mahadnaqa inaynu noqono marka xamar way noo wanaagsan tahay badda liidaa la tagaa imika jasiira lagu ciyaaraa dhalinyaradii baa bicycladii ku maaragtay ku ciyaaraysa horumarkii waa socdaa ma dhan yahay maya wax badan baa ka dhiman laakiin markii ugu dambeysay hadda xamar oo dhalaalayso habeenkii solar lights lagu xidhay iyo awalo haddaad maraysid habeenkii 10 aad ka baqaysay hadda 10 waa la maraa
waxa weeye wax fiican weeye laydh baa inoo baxay laydhkaa inoo baxay inuu ilaahay inoo saa'idiyo waa inaynu ka wada shaqayno waxaa looga wada shaqayn karaa midnimada soomaaliyeed in la soo celiyo anugu waxaan xusuustaa hadda ka horna dhowr meelood baan ka sheegay waxaan ku soo koray guri sida UN oo kale ah qabiil kastoo soomaaliyeed baa ku jiray markaan waxaan iman jiray fasaxa marmar xamar hargeysa intaan ka imaado waxaad soo maraysaa gaalkacayo qofka kuugu horeeyaa ku odhanaya maxaad doonaysaa kusoo dhaweynaya burcaad soo maraysaa waxaad tegaysaa kismaayo xamar soomaali marka lagu arko adoo gabadh yar qof kasta inuu ku teekargareeyo ama waxaad u baahan tahay uu kuu sheego ayay ahayd ilaahay waxaan ka baryayaa qowmiyadaas iyo xadaaradaas iyo soomaalidaas midnimada inuu intaa horta dib inoogu soo celiyo qabiilna waxba inooma tarayo soomaalina ma dhisayo wuu dumiyey waxaan idiin sheegayaa aniga ayayday waxay ku tidhi qabiilku laba shaqo unbuu qaban jiray berigii hore labada shaqo waxay ahayd qofka qaldan inuu qabto iyo qofka qaawan inuu quudiyo intaa wixii dhaafaa qurun buu noqday inaguna qurunkii baynu u dhaadhacnay haddaynaan ka tashana dalkaa la wada leeyahay ee loo siman yahay waa in loo ogolaadaa qof kasta inuu xukunka qaban karo qof kasta inuu xukunka qaban karo qof ka yari ma jiro dad minority la yidhahdaa ma jiro dad 0.5 la yidhahdaa ma jiro taa inaan waynu ogaano weeyaan horta midnimaduna waxay ku dhalataa marka ay jirto waxay maraykanku ay yidhaahdaan social justice xaamud baa ka dhawaajiyey xaqdarrada waddankeena ka dhacday ilaahayna waa inagu maaragtay cadaabay ilaahayna wuxuu yidhi haddaad toobad keentaan waa idinka aqbalaya waa inaad toobadu nusuuxa inaan la nimaadno inaynu iscafino walaaltinimadii la keeno halkaa waxaan uga baxayaa soomaalinimada idinkoo dhan baa soo celin kara carruurtiina bara ciyaal baan iswidhan ugu tegay dhalinyaro ah oo aanu tababar siinaynay soomaalinimada iyo wanaagga iyo iskuullada si aanay drop outs u noqon survey baan ka qaaday waxaan ku idhi ka warrama maxaa habluhu horta aada ugu fiican yihiin oy wax u bartaan inamaduna inta badan waxay yidhaahdeen inamadu waxay aada uga cabteen single motheriska hooyadooda keliya runtaan idiin sheegaya waxay yidhaahdeen role model ma nihin aabbahay aabudawey buu joogaa ama wuxuu joogaa meel kale sanadkii mar buu yimaadaa markuu yimaadana qaylada iga daaya albaabka uu nagu soo bilaa islaam gareeyaa ma runbaa ma been baa idinku bal ka fekera caruur hooyo keliyeeda korinayso ilaahay wuxuu ugu talagalay labada qoyska ragga iyo dumarka arrintaasi way nagu soo badatay caruurteennii baa jeel ku jirta caruurteennii baa bayrad ah ha u malaynina single mothersku inay halkan ka jiraan iyo single fatherska waa jiraan laftigoodu qoyska markuu waddanku burburo qoyskuna wuu burburaa taasina way nagu dhacday marka qowmiyaddu waxyaalo badan oo iskaashaday baa lagu dhisi karaa hasaa ha la ogaado diinta waxaan rabi lahaa inaan wax yar ka taabto iyada laftigeeda waddankeena diinta waxaa laga dhigtay excuse baa laga dhigtaa diinteenu waa diin macaan diinteenu waa diil compassionka aaminsan inaad naxariisatid inaad qofka danyartaa u naxariisatid qofka dumarkaa u naxariisatid qofta carruurtaa u naxariisatid qabiil ku geyn maayo marka lagaa soo tago xabaasha ee ciidda lagugu soo shufo camalkaagunbaa ku raacaya marka waa inaynu sameyno waxaa la yidhaahdo purification of heart waxaa idinka codsanayaa inaad raadsataan 11 CD oo la yidhaahdo purification of heart oo xamse yuusuf nin la yidhahda uu soo saaray waxaad dareemaysaan shakiga iyo maaragtay xaqadka iyo xanta iyo qaylada buuqa aynu isku buuqno oo had iyo jeer soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofka geesigaahi waa qofka dagaalka badan ee buuqa badan ee muranka isagu maaragtay ku rahaya diinteennana waa la ogyahay qofka fiican waa qofka markay qof murmaan isagu ka taga oo ka maaragtay ka sabra marka waxaan jeclaan lahaa dal wanaag iyo dad wanaag waxaa lagu heraa diintii oo sideedii ahayd loogu dhaqmo intaad tukatid 5 salaadood markaad ka soo dhaqaaqdid xan iyo qabiil uma soo jeedsan kartid walaalayaal waxaan idinka codsanayaa caawa inaad beertaan seedka nabaddu waxay ku tahay qofka wuxuu yahayna inaad u ogolaatid waxaad ku tari kartid inaad wuxuu ku xun yahay inaad ka waanisid wuxuu isagu galabsaday uu xaq u leeyahayna inaanad ka xaqirin waayo maalinta yoomal qiyaamaha waa lagu soo istaajinayaa waxaan rabaa inaan ka hadlo isu soo guurka anu kala guurka maba odhan karaba 21 sannadood baynu kala maqnayn kelmaddaa qofkii keenay waxaan u malaynayaa way ka yara simbiriraxatay waxayd in la yidhaahdo isu soo guurka waayo waynu kala go'nay waynu kala lunay
waynu kala gobolaysanay inkastoo aan aaminsanahay anigu systemka federalismka ah gaar ahaan waddankeena 21 sannadood ee ina soo dhaafay xamar baynu inta badan ka wada nimi xamar markay duntayna waddankeena waa dumay marka federalismku in gobol kasta la dhiso oo halka laga soo dhiso bottom up oo dad kaliya ay gobol kasta u soo laakiin ma aha inaad dadka kale ka eridid maraykanka wuxuu noqday dad diverse ah oo mutacalimiin ay soo jeestadaan marka haddaad ka timaadid magaalo yar say Kismaayo oo tirahdid anuu Kismaayo u dhashay iyo ku dhashay sheekadaas waa iska sheeka aynu dib in looga fiirsado loo baahan yahay waxaan aad iyo aad rabaa inaan aad u emphasize gareeyo hadal mar dhaweyd la yidhi waxaa loo baahan yahay deep reconciliation in Soomaalidu si toosa oo wanaagsan oo ilaah ka baqashaa in loo heshiiyo weyn nabar aad iyo aad u caabuqsan haddaad cusbo korka kaga shubtid maxaad dareemi kartaa inagoo dhan nabar saasaynu cusbo ku shubaynaa maalin kasta laakiin waa inaynu nabarka daweyno oo dhayno oo dhirta ka kaxayno ka bacdina waa saa u bogsado haddii dembi la kala galay ha la iscafiyo ha la isu yimaado ha laga wada tashado dembi waa la kala galay qof aan dembi soo gelina inta badan waa yartahay Soomaalida ama adin ku gal ama xabad ku gal ama gacan ku gal ama af ku gal afka laftigiisu waad ogtihiin yawmal qiyaamaha qof baa wuxuu igu yidhi maanta hodanay internetka waxaa lagu soo qoray hodan baa Abu Dhabi lagu qabtay iyadoo 3 milyan sidata marka waan qoslo waxaan idhi horta Abu Dhabi maba soo marin laakiinse miyaanay dadku caqlinaba garanayn intaasoo lacaga qof soo qaadanaya oo boorso ku soo qaadanaya inay dacaayadaas mid meel la gaadheen mid ka fiican inay sameeyaan bay ahayd maanta website-yadeeni waxay gaadheen defamation inay sameeyaan runtii website-yada markaad aragtid waxaad garanaysaa qabiilka ay yihiin website-yaduna waa media-da waata dadka isu keentaa waxaan kula talinayaa haddii isku soo guur jiro website-yada Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan siday dadka isugu keeni lahaayeen yay dadka sii kala geynin hayna kala geynin ay isu keenkeena oo xaqa ilaaliyo qofku xaqa u leeyahay siiya wixii qaldanna sheega ma jirto system ilaaliya hadda internetka iyo waxa qaldan taas takrifalkaasna waa wax xun waa waxaan waddankeena ku burburinay waxaan rabaa inaan u celiyo mahad dhammaan dadka soo abaabulay oo ka soo shaqeeyay oo ku daalay halkan oo isugu keenay dad wanaagsan oo diverse ah oo Soomaali matala aad iyo aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته